السلام عليكم أصحابي كسو دوادا إيماشو وكما جوليان أسانج nin ay ka cabsadaan dawladaha. Julian Assange waa suxufi 49 jir ah u dhashay dalka Australia, gaar ahaan Twinville, Queen Islands. Wuxuu ku soo barbaaray jasiiradda Magnet Island. Assange waa nin aqoon-yahan ah bartay maadooyinka physics, xisaabta iyo computer program. Sanadka markuu ahaa 2006 ayuu samaystay website-ka WikiLeaks. Assange waa nin webka u samaystay inuu soo bandhigo sirta iyo gaboodfallada ay ku kacaan siyaasiyiinta iyo dawladaha awoodda leh. Julian Assange wuxuu soo bandhigay ku dhawaad 700,000 oo dukumiinti sir ah. Haddaba waa kuma Julian Assange ku soo dhawaada. I love WikiLeaks. During the 2016 election campaign, Donald Trump repeatedly extolled the leaker of the Democrats' secrets and reveled in the damage he believed WikiLeaks would do to Hillary Clinton's campaign. This WikiLeaks is like a... December 2010 Julian Assange waxaa lagu xiray London markii dawladda Sweden ay u soo jartay warqad xiritaan oo caalami ah. Eedaha loo haysto waxaa ku jira mid kufsi iyo farxumeyn ah. Wuxuu sheegay in eeduhu aysan wax sal ah lahayn. Intaa kadib taageerayaashiisa waxa ay bixiyeen lacag damiin oo gaaraysa $240,000. 2015 dawladda Sweden ayaa joojisay baaritaano la xiriiray 2 eedeymood, mid yahay kufsi iyo farxumeyn iyo midka kale galmo sharci darro ah, sababtoo ah waqtigii ahayd in ay weydiiyaan Assange su'aalaha oo dhammaaday. Laakiin weli waxaa loo haystaa eedo kuwaas ka sii culus oo ah kufsi iyo farxumeyn. Wuxuuna sheegay eedahaasi dhan inay yihiin kuwa aan sal lahayn. 2007 Julian Assange wuxuu ku soo caanbaxay shaacinta siraha dawladda Mareykanka, laakiin taasi waxay noloshiisa gelisay khatar caalami ah. Taageerayaashiisu waxay u arkaan aabbaha xuriyatul qowlka. Wuxuu soo bandhigay muuqaalo sir ah sida dilwadareed ay geysteen ciidamada Mareykanka dalka Ciraaq, waxaana muuqaalada laga arki karaa ciidamada Mareykanka oo rasaasaynaya wariyaal iyo dad shacab ah. Waxaana ku dhintay 10 qof oo rayid ah rasaasayntaas. May 2012 maxkamadda sare ee Britain waxay go'aansatay in Julian Assange loo gacan geliyo Sweden si uu ugu jawaabo eedaha loo haysto. June 2012 Assange wuxuu galay safaaradda Ecuador ee London kadib markii magangelyo siyaasadeed weydiistay dawladda Ecuador. Dawladda Ecuador ayaa magangelyo siyaasadeed siisay Mr. Assange iyadoo sheegtay in ay jirto cabsi uu ka qabo in lagu xadgudbo xuquuqdiisa bini'aadanimo haddii uu tago Sweden, in looga sii gudbiyo dawladda Mareykanka oo si aad ah u doondoonaysa. 2019 Julian Assange ayaa laga qabtay safaaradda Ecuador kadib markii safiirka u yeeray booliiska. Dawladda Ecuador ayaana kala noqotay magangelyada, wuxuuna safaaradda magangelyo ugu jiray muddo dhan 7 sano. Madaxweynaha Ecuador Lenin Moreno ayaa sheegay in aanu u garaabaynin howlaha uu wado Mr. Assange, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay dhagax galay kabahooda. 2017 agaasimihii hore ee CID-da Mick Pompeo wuxuu sheegay in WikiLeaks ay sanadkii 2010 sarkaal Mareykan oo falanqeeya arrimaha sirdoonka ku dhiirigelisay inuu xado akhbaaraad sirdoon oo si gaar ah u khuseeya Mareykanka. WikiLeaks ayaa daabacday kumanaan fariimood oo sir ah dhanka internetka oo laga jabsaday xisbiga dimuqraadiga intii uu socday tartankii madaxtinimada ee u dhaxeeyay Trump iyo Clinton. Manning oo horey ugu tirsanaan jirtay ciidamada sirdoonka ee Mareykanka ayaa la xiray 7 sano oo xabsi ah, taasoo la xiriirta sirihii ay daabacday WikiLeaks. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiisha Mareykanka aad ugu kalsoon yihiin in Julian Assange lagu maxkamadeeyo gudaha Mareykanka. Haddii ay taasi dhacdo, Julian wuxuu wajihi karaa xabsi gaaraya 175 sano. Mid ka mid ah qareenada Assange ayaa sheegay in qofka lagu dacweeyo xog sax ah uu daabacay ay tahay waddo halis ah oo ka dhan ah dimuqraadiyadda.
Julian Assange dulqaadkii dadkii magangeliyay wuu dhamaaday.